السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود kusoo dhawaada janaalkayga Bashiir Maxamed Bardari barnaamijka saaka iyo soo kale ciyaartooydan ku soo qaata marka ugu xisaabtan dhanka suuqa iyo ruuxana xisala ku qabto dhanka suuqa marka dhanka suuqa waxaa ka mid ah kooxda Tottenham Forest ayaa la soo saaray Johan Bellemoon kaas oo ka yimid kooxda kubadda cagta Leicester City heshiis 18 bilood ku kacaya ayuuna kooxda qalinka ugu dugay lamana sheegin qiimaha xiddigan kooxdaasi ugu soo dhowey warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Chelsea ayaa ugu yeedhaysa daayarkooda Callum Hudson-Odoi heshiis cusub oo ku kacaya 70,000 oo pound si ay u sii haystaan xiddigan Bayern Munchen ayaana tiro 3 jeer ka badan xiddigani soo dalbatay ilaa iyo haatan doonaysa warar kale dhanka suuqana waxaa ka mid ah Cardiff City ayaa si rasmi u soo qaadatay Omar Niaz kaas oo Everton ka yimaaday Alabama ayaana ku soo qaateen tan iyo bishii June ayuuna kooxda baaqi ku sii ahaan doonaa nambarka 19aad ayaana la siiyey warar kale dhanka suuqana waxaa ka mid ah Mark Albrighton heshiis cusub ayuu soo kooxda kubadda cagta Ducada ku June 2022 warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Manchester United ciyaartooydooda iyo shaqaalahaba kooxda waxa ay doonayaan in Ole Gunnar si rasmi looga dhigo macalinka kooxda Red Devils boqolkiiba 100 kalsooni ay ku qabaan in macalinkan kooxda guulo waaweyn uu keeni karo markaan uu yahay dooqa ku habboon kooxda warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Bromwich Albion ayaa doonaysa inay adeega xiddiga Bournemouth daafac uga ciyaaray Tyrone Mingis Alabama ayay ku doonayaan warar kale dhanka suuqana waxaa ka mid ah Chelsea ayaa u dhow saxiixa xiddiga sanad Steve Petersburg khadka uga ciyaaray Leonardo Braga 12 milyan ayay ku doonayaan warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Gonzalo Higuain ayaa u soo duulay London maantadan si uu u dhammaystiro heshiiska amaahda uu ugu soo wareegaya kooxda kubadda cagta Chelsea Bruce Zare ayaan doonayay heshiiskaasi uu dhaco Chelsea ayaana aad ugu dhow xiddigaasi warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Manchester United ayaa go'aansanaysa in heshiis cusub qalinka uga dugtaan daayirkooda Marcus Rashford mushaaraad ayayna siinayaan isbuucina xiddigan waxa ay siin doonaan 150,000 oo pound waana mid ka mid ah xiddigaha tayada leh ee kooxdu ay ku guuleysatay warar kale dhanka suuqana waxaa ka mid ah Macclesfield Town ayaa u magacaabatay xiddigii hore Manchester United xulka qaranka England ee weerarka uga ciyaari jiray Andy Cole inuu qayb ka noqdo shaqaalaha tababarka ee sida joogtada ee kooxdaasi warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Derby County ayaa wada hadallo la leh xiddigii hore Chelsea iyo England daafaca uga ciyaari jiray Ashley Cole waxaana ay doonayaan tan iyo dhamaadkii ciyaareedkan heshiis ku eg inay la gaaraan warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Andre Robertson ayaa heshiis muddo dheer qalinka ugu duubay kooxda kubadda cagta Rediska waana mid ka mid ah xiddigaha tayada leh ee maaliyadda club uu ku tagayo xilli kooxdiisa ay tahay kooxda ugu cadaad ee ciyaareedkan loo soo daalinayo in ay qaadi karto horyaalkii Premier League oo ay muddo dheer abaaro ay ka haysatay barnaamijka nabadgelyo